ciyaarta ayaa goorro garoonka markaasi gudaha u soo geli doonaan labada kooxood ee Hirshabelle sidoo kale gobolka Banaadir. Hirshabelle kulanka koowaad ay ciyaarayaan, gobolka Banaadir kulanka hore barbardhacay la dhaafay xulka Galmudug oo sanadkan markaasi kamid ah xulka sida aadka isbedelada u muujiyay. ciyaartooyda gobolka Banaadir ayaa iyagoo madaxa tabeeb ugu wada xiran yahay garoonka soo galaya. Cabdifataax Saciid Mira ayaa seeriga yeerin doono si ciyaarta loo baasto. waa la yeeriyay markan Hirshabelle waa ay baasteen ciyaartooydooda. waa kan xulka Hirshabelle cross ayay u durbaba sameeyeen, weerar ayay sameeyeen laakiin waa laga qaatay. marka labaatan Hirshabelle Trubaas ayaa la sameeyay, waa kan weerar ayay Hirshabelle afka hore banaanka xulka gobolka Banaadir ayaa iska difaacay kubadaasi. xulka gobolka Banaadir ayaa iska saaray fursadaas alisteed. markan waa kan waa la soo tuuraaleeso gobolka Banaadir waa iska difaaceen. Ibrahim ayaa soo tuuray markan kana mid ciyaartooyda kooxda Geeska Afrika ee sanadkan ciyaari doona horyaalka heerka koowaad. Ibrahim waa kan laakiin ugu dambeyntii waa laga reebtay. Hirshabelle waa laga qabsaday mar kale. waa kan Ibrahim Burhaan Maxamuud Cali ayaa u taagan. Burhaan golayaha xulka gobolka Banaadir ayaa gacanta ku dhigay oo ay raadinayaan markii ugu horeysay maadaama uu martigeliyahay isagoo markaasi joogo gurigiisa uu ku guuleysto. markan waa kan lambarka 20aad meel wacanay soo dhigay fursad fiican xasan kaafi cabdullaahi cali ayaa iska qasaariyay fursad daabiya. gobolka Banaadir waxaa lagu helay fursad daabiya oo goolka koowaad looga dhalin karo, laakiin xasan kaafi cabdullaahi cabdi ayaa iska qasaariyay. waa kan mar kaleeto waxa ay markaa in laga tuurtay difaaca, ugu dambeynna banaanka loo soo dhigay. cag maskiina ayuu gamay, goolaha yahanad ayaa banaanka isaga saaray. weerar ayay sameynayaan markan fursad fiican oo daabiya gobolka Banaadir. muuse penalty ayaa laga dhigayaa xulka dowlad goboleedka Hirshabelle. gool kulaad ayaa laga dhigayaa xulka dowlad goboleedka Hirshabelle. kaarka jaalahana waa la siiyay ciyaaryahanka markaasi lagu magacaabo Yuusufey oo ka mid ah difaacyada Hirshabelle. ciyaaryahanka lambarka 9aad ee xulka gobolka Banaadir laacibka lagu magacaabo muuse ayaa u suurageliyay inay gool kulaad helaan xulkiisa kadib markii xidiga lagu magacaabo Cabdulle oo kubadaasi uu soo tuuray. waxaa kala tuuray oo riday xidiga lambarka 2aad ee Hirshabelle laacibka markaasi lagu magacaabo Cabdifataax Saadaam Cumar ayaa riday. kaarka jaalaha ayuu ku qaatay Cabdifataax Saadaam Cumar. أيوب محمد عبدي أيوب xulka gobolka Banaadir ayaa hoggaanka ciyaarta qabtay. xulka gobolka Banaadir ayaa dhalinaya goolka koowaad ee ciyaarta. Hirshabelle waa loogu shubay. Banaadir gool. Hirshabelle 0. xulka gobolka Banaadir ayaa markaasi dhalinaya goolka koowaad ee ciyaarta. sheekana waa 32 daqiiqo. Ayuub ayaa u dhaliyay gool kulaad aad u qurux badan ee jooga hoose ku socoto xulka gobolka Banaadir. Ibrahim Mas'uud ayaa soo tuuray kubadaasi. markan weerar ayay sameynayaan, waa kan xulka gobolka Banaadir. muuse misbiyaaj muuse ayaa kubadaasi laga saaray. goolaya Jeelaani Cali Macow ayaa si qurux badan ugu badbaadiyey. mar kale waxay ahayd fursad halisa. muuse ayaa ku gamay darbe xoogan, goolayaa bixintuu sii bixinay birta ayay ku sii dhacday. dhan kastaba waa laga fadhiyaa, ma jiro fursad ka banaan. Banaadir markan waa kan karoos ayaa la sameynaya fursad fiican. muuse goolaya Jeelaani Cali Macow ayaa fursadii labaad ka badbaadinaya laacibka lambarka 9aad ee muuse xuseen cali, laakiin waa ay socotaa ayuu leeyahay sagaalka ciyaarta. waa advantage markan fursad fiican Hirshabelle afka hore dilinta ganaaxa. Hirshabelle waa kan ugu dambeyn waxaa leeyahay waa gacan tuur. waxaana soo tuuran doona xulka gobolka Banaadir ayaa dhankooda loo wadayaa. ay sugi doonaan natiijada Hirshabelle iyo Galmudug oo ciyaari doona. Yuusufey markan waa soo tuuray, ugu dambeynna qaybta sare ayay martay. qaybta hore ciyaarta ayuu soo ileeyay garsoore Cabdifataax Saciid Mire. waxaana qaybta hore ciyaarta lagu kala nasanayaa gool ay leedahay gobolka Banaadir iyo Hirshabelle oo aan wax gool la dhalin. agaag saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan.
waxaa dib liiskugu soo laabanayaa 45 daqiiqo oo shaqo badan u baahnaan doonta 45 daqiiqo isbeddel Hirshabelle raadin doonto 45 daqiiqo banaadir difaac adag ee samaysan doonto isla markaana qaybta labaad ee ciyaarta ay kula dagaalami doonaan Hirshabelle markan Cumar Bashiir ayaa iska soo saaray kubadaasi waa lagu la dagaalamay banaadir markan weerar ayay sameynayaan إبراهيم وكان سوى يو باسي بنادر مركان ويرر يكون جرتا فرصة في عن إدريس بنانكا موسى لكن والله قبل بعد يكون بداسي على استبدن أجاك مركان يرشب الله لمبر كذا لبعض الدفاع أنا وقام يا حلكا وحاو كل نفس صاحبك ولي عبد الناصر وكان وحاو كحر صاحبك تروباس يا لسمي فرصة في عن مركان عبد الناصر تروباس فرصة في عن الشباب علكا قبل كبنادر أيام مركز لقدري جول كبربر لكن وحل ليا وقرب داف أما أوفسايد أيال اللي تروباس أيال السيي مركي كوبدا حسكافي وكل فصدي عبد الناصر أيال ترو مع وعم بحيي لكن ترو بحي عبد الناصر وحقب صدي عياريان كلام بركلا باتنات ولا مركاسي بنادر يا هيستو بدا ايوب وكان مركان وحكو خير صاحبكي عبد الرشيد واو دغ مال وعنا يو دغاي ورأي سمانيان gobolka بنادر والله cunay markan afka hore dilinta ganaaxa fursad fiican no جيلاني علي معو si qurux badan ayaa difaac Hirshabelle loo soo cunay ugu dambeeyna iyaga qabsaday idris waxa hor dhigay saaxiibkii waa kan markan muuse waxa uu ku xiray xaaji ayaa dhaqaaqay markan موسى يوديبي موسى واكن فرصة في عن موسى واكن وحاو كحر اسنا صاحبكي واتن مركن بنادر فرصة دعبية حلقة قبل كبنادر ايا الى جول كل بعد فرصة يكون الانكران لكن ما يسنقون ان دليان والرئيس سمانيا مركن احمد حسن حسين واو قلي افكوري فرصة في عن قبل كبنادر وايسكسو دفاع عنكم بداسي ولي يقا هيا بنادر مركان كونتراتاج يسمين كران لكن والله قاتي Hirshabelle مركان قيبت سرايو مرسيي لحدا يكو بديتال ورأي يسمين يا Hirshabelle والله صودق أفكاري فرصة في عن ولي واكن حسكافي كوشن واوك قساري فرصة داسي وحايا مركان عيارتويدا weerarka gobolka banaadir daadir jalla waa kan waa uu turtay jalla waa uu galay waa uu dhaqaaqay wali isaga ku jira leenayo dishota daadir banaanka fursad fiican banaadir miss biach waa iska qasaariyeen xulka gobolka banaadir xaaji ayaa ka marsiyay qaybta sare dhamaadka ciyaarta ayaa ku sii dhawaanaysa 8 daqiiqo qura ayaa ka hartay 8 daqiiqo banaadir waxa ay doonayaan isbedel jalla ayaa ka turtay difaaciyada waxaana uu la galay leenayo dishota ugu dambeeyna banaanka ayuu soo dhigay saaxiibadii laakiin xaaji ayaa qaybta sare marsiyay kubadaasi وكان مركان فرصة في عن حسن كافي أحمد جول يا هناد عمر إسحاق جول يا حلك قبل كبنادر يا بدبادي فرصة داسي على استبدنات Hirshabelle الرجدي واسكدلين وحايد كبت سقروح بدن لوغ سو شقيي دفاع قبل كبنادر أيو سرقاميي لكن ugu dambeyntii dhamaystir ayuu waayay waxaan ugu dambeyn goolka gacanta ku dhigay جول يا حلك حسن كافي وكان مركان حسن كافي بريلكا عرت مركان حسن كافي ولي waa laga difaacay banaadirna waa iska saartay ugu dambeyntii banaadirna waa iska saartay hagaag markan waa laga saaray mar kale ciyaartina waa soo ilaatay saaxiibayaal